shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyadoo maanta lagu soo hadal qaaday ajendayaal badan oo ay ka mid yihiin in la furo wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay cabasho ka keeneen dadka reer Muqdisho taasoo loo xiray sababo la xiriira dhinaca amniga. sidoo kale maanta shirka waxaa lagu falanqeeyay doorashada ka dhici doonta Soomaaliya waqtiyada inagu soo aadan taasoo shirka golaha wasiirada si qoto dheer looga hadlay sidii ay uga dhici lahayd doorasho cod iyo qof guud ahaan dalka Soomaaliya. gabagabadii waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Injineer Yariisow qodobadii ka soo baxay shirkaas. arrimaha amniga wasiirka amniga wuxuu ka warbixiyay xasilinta caasimadda iyo dalka howlgallada ka socda aadna loogu soo dhaweeyey kaalinta shacabka ay ka qaateen gobolka banaadir iyo hay'adaha amniga ka wada shaqeynaya wadooyinkii la xirxiray amniga darteed maadaama amniga soo hagaagay in qaarkood la furi doono dhowaan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa warbixin siiyey golaha wasiirada ku saabsan guddiga siyaasadda heer wasiir oo laba usbuuc la soo dhaafay ka hadlayay siyaasadda iyo jihaynteeda. waxaa la isla gartay sidii lagu heli lahaa doorashooyin hal baq ah in ay xukuumaddu aad diiradda u saarayso mudnaan gaaran siinayso bacdama ilaa xad amnigii iyo abaarihii hagaajintii maamulka maareynta maaliyadda la qabtay hadda in loo soo jeesanayo sidii shacabka maaragtay loo xaqiijin lahaa in doorashooyinna la qabanayo shuruucdii doorashooyinkana la hagaajinayo dib u eegistii dastuurkana la dhammaystiri doono shuruucda kale u baahan ama dib u heshiisiinta noqotana la dhaqangelin doono. maanta shirka golaha wasiirada waxaa lagu magacaabay hantidhowrka guud ee qaranka oo loo magacaabay Maxamed Cali kaasoo ah nin aqoon-yahana oo ka soo shaqeeyay. ugu dambeyntii golaha wasiirada waxay cod aqlabiyadda ku ansixiyeen oo wasiirka maaliyadda uu soo jeediyey in Maxamed Cali loo magacaabo hantidhowrka guud ee qaranka. محمد علي وشخصي هايست شهادة ماستركا ولو يقان MBA sidoo kale shahada accountancy ka haysto bachelor kiisa haddana ka shaqeynayay dowladda Mareykanka gaar ahaan Washington muxuu ahaa dowladeedii ayuu ka ahaa chief financial officer oo runtii heer muxuu ahaa Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV xarunta madaxtooyada magaalada Muqdisho.